الله الرحمن الرحيم. عشر كهرباء نسمينا وحنا كوجوجيني في قابك فيسبوك الله سميه. هدبا وحنا كحكسين دونا إن شاء الله قاب كما سنشرك الله قرأ يعني وذرك سامان مالين واد لا سعتان بلاين تصالة يرو في عن ثاني ونقنه إن سوري halka waan irka nabanana halka messengerku ku sawiran yahay ayaan kali garaynana wayna guda gali doonaa continue wayna la oran doonaa insha Allah balse waa inuu marka hore messengerku ku soo deganaadaa messengerku waa inuu ku soo deganaadaa haddii aanad garanayna insha Allah casharada dambe ayaan ku sharxi doonaa qaabka markuu u soo dhigo laba mid isku weydiin automatic u galo هذا صفي عن ودقيست خيارتي ذا قارقاي وحليني continue بس وح بيني مودين سو اوتوماتيك وقاتي وكا وحبيرات فيسبوك نوافق ان ومن ذلك على اصحابتي ذكرين اتصال في عنوسيه ان halkan waa homekii halkan waxa weeye asxaabtaada wixii aad kooleynayso halkan waa kamaradii en halkan hoosena waa activity معناه dadka gudaha mobilka aad isticmaalso ku jira numberska ku jira ayaa halka kala xiriir doonta insha Allah Facebook ana ku isticmaalaya active marka leedahayna waxa weeye wuxuu ku soo saar doonaa dhamaan wixii online ah halkaan hadaynu taabano tusaale yar waa kan profile-kayga Abdi Osman username-kayga waa ka phone number-kayga halkaas aan gelinaya notification halkaas imanaya SMS halkan imanaya waa ka photos ku sawirada halkaas imanaya waa ka mid aan idigu celiyo labada meelood haddii halkaa aan TikTok ka saaro tan aan ka saaro wixii sawirayaan la ii soo diray ma geli doonaan mobilkayga balse haddii halka labada meelood furayin si toos ah waxa u gelayaan madaxa mobilkaaga taa la soco haddii aan doonaynay mobilka galaan labada tagoodba ka saaraysaa si aan mobilkaaga u bixsamin laakiin haddaad u baahanto wixii sawir lagu soo diray galaan mobilkaaga halkaas aad TikTok insha Allah ka soo doontaa intaas waa taa mobilkaaga kulli adiga ayaa yaqaan kulli mobil kasta qaab uu ku soo baxay laakiin Facebook majority-giisa qaabkan uu soo baxaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asxaabtada qaaligaad baan idin salaamay cashirkan cashir ku xiga insha Allah mid xiiso badan buu noqon doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh